wafdigan ka socday majmaca culimada Soomaaliyeed ee maanta soo gaaray magaalada Kismaayo una hogaaminayay gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Ahmed Salaad ayaa markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa soo dhaweeyay xubnaha labada gole ee maamulka Jubbaland culimada magaalada Kismaayo ee qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweynta culimada kadib ayaa waxa ugu horeyn warbaahinta la hadlay Sheekh Cabdirashiid Gacmay oo kamid ah culimada magaalada Kismaayo iyo sidoo kale wasiirka macdanta biyaha iyo bay'ada Jubbaland Maxamed Sheekh Yuusuf waxaana ay sheegeen culimada waxaan leenahay soo dhawaada reer Kismaayo magaaladiinii culimada u ahaydeen inta badan idin sugaysay ku soo dhawaada annagana farax bay noo tahay maanta imaatinkiina dadka reer Kismaayana sharaf weyn bay u tahay imaatinka culimada inta dhan cadadka dhan ay soo gaadhay waana idinka mahad celinaynaa xilka aad iska saarteen inaad soo booqataan magaalada soo dhaweynaa insha Allah taala culimada diinka reer Soomaaliyeed oo noo timid uu hogaaminaya Sheekh Bashiir Dr. Sheekh Bashiir sidoo kale sida hadda aan xogta ku hayna culimo kala galabtii ilaa waqti kale imaan doonaan runtii ka dowladda Jubbaland anoo wakiilka ah runtii dowladda gobolka Jubbaland waxaan ku faraxsanahay inay soo gaarto culimadii oo baahi badan loo qabay waxaan dhihi doonaa waa la sugayay runtii waxaana la kulmi doontaan madaxdii ugu sarreeyay dowladda gobolka Jubbaland oo ugu horeeyo Sheekh Maxamed Islaam madaxweynaha annaguna mar walba waxaan u dhiiranahay ama diyaar u nahay runtii inaan soo dhaweyno cid kasta oo ku kordhinayso runtii waxtar hadda waxaan dhihi karaa inta la soo dhaweyn jiray ama wufuudi la soo dhaweyn jiray waa wufuudi ugu qiimaha badneed oo runtii aan soo dhaweyno maanta intaasi kadib ayaa waxaa madasha la hadlay isla markaasina ka warbixiyay ujeedka socdaalkooda gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Ahmed Salaad oo sheegay inuu socdaalkooda ku qatomo casuumaad uu fidiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayna kulamo wacyigelin ah la qaadan doonaan shacabka iyo madaxda maamul goboleedka Jubbaland inta ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo intii aad ayaan ugu faraxsanahay aniga culimada socotaa inaan maanta aan soo gaarno dowladda Jubbaland intii ziyaaradan iyo kulankan iyo ziyaarada mar hore ayay ahaydeen soo aadno oo mar hore ayaa madaxweynuhu uu maaragtay martiqaadka noo fidiyay laakiin annaga iska mashquulsanayn runtii marka waa soo daahnayba oo mudnaantiinii iyo martiqaadkii aan noo fidiseen waa ka soo daahnay marka aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay inaan soo gaarno magaaladan iyo dowlad goboleedkan oo aan wax ka oofino ballamadii aan galnay insha Allah taala runtii hadda dad fiican iyo dal fiican ayaa u nimid dalkii culimadu ay maaragtay runtii aan asalka u lahaa weeye marka waan salaameynaa waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha leh oo qadarinta leh oo hadda magaaladii dhanba soo saarteen ba culimadeedii iyo wasaaradeedii iyo agaasimayaasheedii iyo baad runtii aad baa maaragtay maasantihiin insha Allah taala maaragtay hadda maalmaha aan joogno kulamo iyo inaan ziyaarno dadka mas'uuliyiinta oo la kulanno inaan insha Allah shacabka la kulanno bal maaragtay iswareysano inaan wixii insha Allah taala wacyigelin iyo iswareysi ah ayaan maaragtay haduu socnaa Maxamed Qaasim Ali Waxar TV عالمي ساب مقالة Kismaayo.